Daawadayaal halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa nin Finnish ah ee waddankan Finland u dhashay ayaa wuxuu ka dhacay macaamiishiisa nin kaleetay oo tagsiile ah oo qaaradda Afrika u dhashay. Marka waxaa idin tusi doonaa qaabka ugu dhacay iyo marar badan oo arrimahan kala dhaceen. Laakiin maanta maadaama aan fiidiyowgii aan hayno waa idiin soo gudbinaynaa. Waxaa naga xasuusin ah in aad subscribe saartaan si aad mar walba ula socotaan barnaamijyadeena, gambaleelkana aad u furataan. Qofkii mar saaraa mar kale uma baahna. Dhiirigelin ayay noo tahay haddii aad saartaan like. Waa mahadsantihiin. Kani waa nin Afrikaan ah ee tagsiile ah ee lagu gardarooday weliba si cunsuriyad ku jirto looga qaatay macaamiishiisa. Duqda waayeelka ah ayuu maaragtay asiga maadaama u horreeyay ayuu qaatay mar alla markay galaysay alaabtiina uu rabay inuu gadaal u geliyo ayaa ninkan oo ka dambeeya soo cararay u yimid oo yiri ninkan taksigan taxi viralinan ma aha oo sharciyeysan iyo macnaha muxuu ah vakuutu saxa kuma jiriyo caymis saxa kuma jiro wax la mid ah bis naagti way qalqashay duqdii wayna rumaystay hadalkiisa maadaama cidaan inta badan hal dhag wax loogu sheego. Hadda wuxuu isku dayayaa inuu wax sharaxo oo sheego macnaha ninka wuxuu ku haysta laakiin war saxa ma aha. Ninka Afrikaankaani meesha qalqal ku galay oo wuxuu taagan yahay maxalli u haystaa aniga normal taxi ayaa haystaa maxaa si wax u jiraan. Adiga ugu dambeyn ninkan hadda wuu fahanyay waan u sharaxay yarkan Afrikaanka ah waan iri maaragtay ninkan waa inaad dacweysaa fiidiyowgan uu qaatay inuu dacweeyo rajeynaya. Okay. Halkan marka waxaa ka garan kartaa in dhibaato ay ka jirto tagaasida oo lagu dhibaateynayo mar walba dadka masaakiinta gaar ahaan dadka ajaanibta. Arrintaas marka waxa fududeynayana wax kale maaha. Waxaa fududeynaya maaragtay in ay Finishka u nugul yihiin in warka ay ka dhigaystaan qofka kale ee Finishka ah. Hal mar ma aha dhowr jeer ay dhacday laakiin hadda maadaama fiidiyow aan ka helnay oo laga duubay sidaas daraaddeed ayaa ula wadaagaynaa bulshadeena ku nool Finland iyo cid kastaba ama Finishka ahaato la gaarsiin karo la gaarsiiyo ay dareemaan cunsuriyadda ay ku hayaan dadka la nool. In gardarrana maaragta loogu danaanina ma aha. Waa in maaragta laga dhiidiyaa aan muujinaa bulshadana ay wada gaartaa ayagana ay arkaan qalaadka ay ku dhaqmaan. Waayo maanta wax yar qof ajnabi haddii qalad uu ka dhaco hawadaas ayay mariyaan. Aan dareensiino hana la gaarsiiyo meel kasta ama public kasta la dhigi karo si ay u arkaan gardarrada cad ee kula dhaqmeen. Codka iyo waxa dhan muuqaalkane oo isla wada socdane waa daawo doontaan. Halkaas ka daawada waxaa idinkaga cudur daaran doonaa fiidiyowga maadaama si sax ah loo duubin oo kiis lagu duubay size-kiisa wuu qaldan yahay laakiin muhiimaddu waxay tahay fariinta in la fahmo meesha u socoto. Waa mahadsantihiin idinka ayaa si ka dhex baxaya iyo muuqaalkii. Oikea vakuutus, mikä on taksiliikennevakuutus. Ottakaa. Mitä se vittu sanoo? Oikeeta. Ota sama juttu. Joo, tänne. Mitä se vittu sanoo juttuja? Ymmärrätkö? Ota Niin. Se taksivakuutus. on normaali taksi vittu. Otin liikaa tavaraa ja mä en ole kunnossa käsin. Terve Jumala, tuommoista vielä. Okay. Eikö sulla se kelakyyti ollut? On. Kato, se oli äsken tuossa se kelakyyti. Tähän tuli yksi menevän auto, mikä mä sanon, että se on varmaan se, mutta se kysyi, se on Töölön tapaturma-asemalle. Oliko? En tiedä. Kato, se kelakyyti oli tässä äsken, joka kysyi. Ota oikea liikennevakuutus, taksikäyttöön. Älä aja yksityisvakuutuksella, jos sä ajat taksiliikennettä.